خلقه ثم هدى قال فما بال القرون الأولى قال علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى الذي جعل لكم الأرض مهادا وسلك لكم فيها سبلا وأنزل من السماء ماء فأخرجنا به أزواجا من نبات شتى كلوا وارعوا أنعامكم إن في ذلك لآيات لأولي النهى منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى. الحمد لله. مرحبا بكم أبناءنا وإخواننا، حفظكم الله ورعاكم وفتح عليكم أبواب الخير كلها. آخر آية منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى، وتذكير هي إيش حسوسين أصل الإنسان iyo meeshuu ka yimid iyo meeshuu u noqon doono. haddii cid ay wax xusuusanayso, ay tadakurayso, ay khushuucayso, waxaa ugu awleysan طaalibulcilmiga. أولى الناس بالخشوع والخضوع لله طالب العلم الداعي إلى الله. isaga dadku dhan ka awleysan, لأن cilmiga baridiisa iyo dacwada fidinteeda waxaa asaas u ah ninkan daaciga inuu isagu mutaathir ku yahay, oo arintaas isaga marka hore ay saamayso si ay dadka ay u gaadho. waana min sunnati illaahi, waxaan qalbi ka soo bixin inaana qalbi kale uusan weelayn una gaadhin. sidaa darteed awla nnaasi bitadakuri waa ahlu lqur'aani, ahlulcilmi, dadkan nisbadan khaaska ah, iyadoo muslim guud ahaan leeyahay haddana nisba khaasaad yeelatay oo ilaahay baa ku sharfay. khaasatan ahlulqur'aan ilaahay si khaasu u xusay. bal huwa aayaatun bayinaatun fi suduuri aladiina uutuu lcilm wa kalaamu llahi laysa biamrin hayin. allah baa saas leh, bal huwa ay alqur'aanu آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. طيب كواس أوتوا العلم صفات كودنا إلهي بقرآن كعدي إن الذين أوتوا العلم إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا ويخرون للأذقان يبكون. هذه صفات أولو العلم. أوتوا العلم kuwa uu ilaahay yiri laabtoodan quraanka galinay oo ku xambaarnay kitaabka, waa kuwa sifada leh weeye. waa kuwa markay kalaamka ilaahay ay maqlaan khushuuca weeye. waa kuwa ooyo weeye. waa kuwa habeenkii iyo maalintiiba u taagan tilaawata kitaabillahi aanaa al-layli wa aanaa an-nahaari. waa kuwa quraanka sida uu imaamu shaatibi raximahullah muqadimadiisa shaatibiga markii uu sii dhamaynayay sifaat طaalib alcilmi, sifaat qaari alqur'aani markuu ka hadlayay, waa kuwa uu ku tilmaamay uu yiri binafsi man istahdaa ila allahi waxdahu wa kaana lahu alqur'aanu shirban wa maqsala. qur'aanka uu u noqday shirb yashrabuhu yatadaharu bihi iyo maqsal uu isku dahiro, quudna uu ka dhigtay. وقرآنك قوت القلب مغسلنا ويه ذنوبتي إلهي كما إليه سبحانه جل جلاله. مركاسه حويري وكان له القرآن شربا ومغسلا
فطوبى له والشوق يبعث همه وزند الأسى يهتاج في القلب مشعلا. wuxuu tilmaamay inuusan baarid ahayn kalbaaridiine mutawaqid alqalbi uu yahay, qalbigiisu hursan yahay lixaml waxa uu xambaarsan yahay cidamka uu leeyahay awgeed shawq iyo maxabatullaahi inay ku abuurayso oo shawqaas iyo maxabadaas ee qalbigiisa ay hurinayso. والشوق يبعث همه طبعا وزند الأسى يهتاج في القلب مشعلا. وفي نفس الوقت الأسى والحزن لما فاته وحي كتغي يا عمري كتغي وكتل مامي الشاطبي أيضا سبهللا مركي وكت أسفي أما وكحما سيدا ضدكو انتي سيبادن ودقيهين فيا ضيعة الأعمال تمشي سبهللا. السبهلل المركي لفسيري وحيدهين هو الذي يذهب ويجيء من غير شيء، كان iska tagaayo soo noqonayo bila shay bila faa'ida, يروح وياتي meel iska aada iska soo noqonayo bila shay. waana dad sida loo badan yahay Allah naafiye. marka صاحب القرآن يعني يأسف لهذا الأمر wixii cumrigii ka tagay inta ka dhimanna markaasuu talaafi uu ku sameynaya. هو المجتبى يغدو على الناس كلهم قريبا غريبا مستمالا مؤملا. مجتبى مختار من الله تعالى بصفاته صفوين كيس محاكمة يغدو على الناس كلهم قريبا غريبا. هذا مركو ما دام وصوك الله ما ولا لا معاشرين يو لين عنوا قريب وياهيو اسكا كبرين مايو اسكا قادم مايو قريب منهم. وفي نفس الوقت هذا نوا غريب أو يقال لدقن معها أو شأني كلو ليه وأريتي سوا كوين داي بما حمل في قلبه ذاتك شأني قوذو كليالا ما غرب كجرا هو غربة في غربة بينه وبين نفسه حقنا ذاتك شكا قادم ما وقريب إياه حالة كونه مستمالا يستميله الناس مؤملا يرجون دعاء بركة دعائي. مركز سيف يوحي يعد جميع الناس مولا لأنهم على ما قضاه الله يجرون أفعلا. ذاتك أردن أكتيسة وحي كحساب سيهن إني سيدوهن ننا اسكفضل مايو نول بوحو هيستا إنو كفضل بدنيه يعني سجين لقفضل بدنيه سو مفضولي هو لقفضل بدنيه تاسو ترينا هذه يقول يعد جميع الناس مولا لأنهم على ما قضاه الله يجرون أفعلا. حتى هدي أي تقصير ظاهر كود وكم مقضه يقامين أي طاعة إلهي كقامين أيان هذا نقضها إلهي بيكون ريانو خواتيم توحي نقول سنة لقمور هيو مرنا بعدنا اسكفضلي مايو في قرارة نفسه مرنا أورن ماي أنا دت كفضلي بدن. هذا صفات حامل القرآن يرى نفسه بالذم أولى لأنها على المجد لم تلعق من الصبر والألا. هدي عدل اللي عينيو أما لعاييو أما وحلق الشيقيو أما تقصير لون نسبينيو نفتيسو النسبينيا إنها أولى هي الأولى لأنها على المجد للوصول إلى المجد في العبادة والطاعة والجد. إنه قالوا لم تلعق من الصبر والألا يعني صبري ودعرتوي والألان وشجرة لمذه أو خراروي يعني وموسا أتكيسن بمعنى ما صبر على طاعة الله تعالى وعلى والمصائب سيده صدرتت نفتي سو يو عيبين يدل عيني عدك له وحك الشيء مايو. هذا صفات حامل القرآن يعد جميع الناس يرى نفسه بالذم أولى لأنها على المجد لم تلعق من الصبر والألا. وقد قيل كن كالكلب يقصيه أهله وما يأتلي في نصحهم متبذلا. أرن عجائب له هل كان الإمام الشاطبي كهضي ووجهي يوجهنا جميعا وهم حي وحيري وقد قيل هري وحالو يري كن كالكلب كلبك ايغو كلا نقو هسودك دقن هدين محل عاي
عشان عين متالو وحيري كن كالكلب أيغو كلا نقو وحاجات كنقطها في صفة من الصفات الطيبة صفة أولية هي أيغو أو أنا أكسم باجرتا تاسو كلا يالو هو محي يقصيه أهله أهل كيسا ويفوقينيان أيغا أهل كيسا ويفوقينيان ويدقحينيان ورنقا فوق بليين وهذا ويرتاي ور أيغا وعايان يقصيه أهله iyagu saasoo may samayn maalintiisu saa kumay samayn habeenkii haddii tuug reerka u soo dhaco oo doonaya inuu xoolaha ka qaato miyuu u aamusayaa ma wuxuu odhanayaa aan ka argoosto qoladii maanta i dhibaysay ee caayaysay iyo dhagaxyeynaysay oo calal aqal shib intaan dhaho tuugan alaabta ha ka gurto miyuu dhahayaa maya muxuu samaynayaa waa ka difaacayaa hadday ugu yaraato ينبح وأكوها وهولينيا وهركو سوكعنيا مركاسي حلوه عشانيا يعني نصح قودو أتاقن يهي بريتو سيدي بيكون نقونيا ما أرنيا إيجي نفعنا حالي حولها نودعي ما أنت أنسل سلاحنا أنسوبانو مدحيان إيوا عايان ودحيانيا هبين دمنا سيدي بيكون نقونيا مرنا باي سوو نصحيقا كما تقايو أيهو وحكستي كسامين oo ay ah oo dhibaato ah isaguna nusxigoodu u taagan yahay wuxuu ku yiri marka sifadaas oo kale yeelo waqad qila kun kal kalbi yuqsihi ahluhu wama ya'tali fi nusxihim mutabadila ayga sifat ajaib luleh in العالمها كالفي حتى كتاب وكم magacaabay تفضيل الكلاب على كثير ممن لبس الثياب فاتر تفضيل الكلاب على كثير ممن لبس الثياب إن بدنوا درك حراسة فضل أي ليه ورهم أو كفي عيه مركز الصفات كيسي سو أرورية وكتاب مطبوعة مرزبان للي اللي فيه أركا من هذه الصفات وما بحي هذا حامل القرآن تهي ده طالب العلم أتهي حتى الداعي إلى الله أتهي إن هذا القات كيالته وأذيك دلّي عينته iyo dhibaatada iyo cayda ku soo gaadha aadan u jawaabin ee aad wasiyada rabbiga adeecdo idfac billati hiya ahsan adigu sida wanaagsan inaad u jawaabto adigu inaad dul qaadato haday ku noqdaana wanaag adigu ku noqo wallahi hada fiican waay hada fiican soma waa sahal inaan ku hadla aniga waa sahal idinkuna inaad dhageysataan waa sahal laakiin ku amal falkiisa Allah nasiyo arinta inaad ku amal fasho الله نسيه كل جن الله نسيه وأرن أي نفي شيطان ديديان عزة النفسية بين تذاكو ديديش بركة إخواني بارك الله فيكم علاقتك مع ربك وإني مميز نقطة أهل القرآن وأهل العلم وأهل الدعوة إلى الله وإن علاقة ذو أي خاص نقطة ودتك كله آذن كديان أهل البطالة أذو جدي واجتهاد التي ماذا ما أنت علده وين فئات كاس هذا فئات كأن كهذا لأنه هيجتها وحاوي وعدم العلم عدم العمل بالعلم علمي إن اللي عمل فلن دي علمي كو حكى كتاب القرآن كذا أخرناش إنها صفات كاس وإلهي كصفين إلهي جن كما شاكين وجن كلا ورمي مايو يا عبادة ديسة ملائكة لقاقا ورمي مايو إن لقى شيء إن مرمرك قار كل شيء موي لكن دتك وإلهي السفينة هو هذه هو بشر وهذه كله وما مقام النبوة ودنجاري كريم ما هو حلقة هذا مقام النبوة إلهي وخصيصي يا البابك أو حري راتلقوا ملأ من جاريشي الأنبياء ختم بها نبينا محمد صلى الله عليه وسلم بلغوا ختمي صفات كإلهي وكصفي أهل الله وأهل الخير إن هذا يقول نفت هذا أذو بربر دكتو أو إسبانه أو إسفيرسو حجبان كشابها انتبه إجمعاً محان كلا يهي مالين تودو شيء هيد هبين كيدو شيء هيد يعني هذا هبين كانوا شيء ولي أنت ألعبت نسوق شيء سوشيال ميديا نسوق عليه واتساب يا فيسبوك يكون كلا عرفتي إليه قال انستغرام إيو محيا
iyo snapchat iyo maliyo baaskan fara badan inta ayna soo galeen habeenkeenu seeya maxaa lagu soo jeedaa waqtiga inta badan xagee lagu bixiyaa dad kale uu ilaahay ka hadlayay marka uu leeyahay kaanuu qaliilan min al-layli ma yahjacuun in yar bay habeenkii seexan jireen oo inta kale maxay qaban jireen ma alaabtaanay ku soo jeedeen mise qiyaamuleyl bay tukan jireen qiyaamuleyl bay tukan jireen kaanuu yaquumuuna al-layl yuraawixuuna bayna al-aqdaami wal-jibaah marka ay luguhu ay daalaan wejigaa ay ku nasanayaan sujuudday ku nasanayaan markay sujuudda wejigii xanuuno lugahay ku nasanayaan yuraawixuun bayna al-aqdaami wal-jibaah ramadaan ma aha keliya tobanka dambe keliyana ma aha kaanuu qaliilan min layaali ramadaan buu ilaah yidhi والله من الليل يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون هذا وحلقة شيكين يا والي تقتدي إنها تقضيته inaad isbaadho inaad isfiiriso yani subxaan allah waxaan xusuustaa alwaalid sheekh cali suufi raximahullah horta marka ugu horeysa isagu yani barnaamijkiisa sidaan ku qiyaasay yani 1 habeenimo ama 7 saac habeenimo sidaa u taqaaniin ayuu soo kici jiray ila alfajr hurdo ma jirin fiidkiina bacda alcishaa hadduusan darsi jirin horuu ka seexan jiray qofnana uma mujaamalay jirin ma cindahum mujaamala maca axad dad haddii u yimaadaan ama oo aan warba ka haynin dadka warka maba imanayaan cishaha kadib laakiin hadday dhacdo mid inuu soo khaldamo wax yar daqaa'iq kadib oo cudur daaranaya adeer waa dad baan iska dhaw waa iska seexanaya iska sii soco odhanaya mujaamala ma jirto cindahu camal jaad marka 1 habeenimo marka la gaaro waa istaagi jiray marka qiyaamul-leylkiisa markuu guriga ku dhameysto kadib meesha 9 saac leeyahay ama 3da loo yaqaan oo fajrka ka horeeya wardigiisu masaajidku marka quraanka uu ku akhrisan jiray aadaanka hore marka waxa uu soo galay isagoo in badan soo akhristay marka bayna adaan labada aadaanka hore iyo aadaanka dambe taqriiban saacad baa u dhaxaysa waxaan xusuustaa habeenimada kamid ah anagoo iska yaryar oo hintiisan ku soo kacnay maxaa oo hintiisan ku soo kacnay bayna al-adanayn labadaas waqti dhexdooda ayuu soo kacay marka isagoo barooranayo qaylinayo laa hawla walaa quwwata illa inna lillahi wa inna ilaihi shaytaankii baa naga qaad hadda fajrkii in badan baa ka dhiman aadaankiisa waa bayna al-adani wa adaan al-awwal wal-thani wa labada adaan dhexdooda baan xusuustaa marka يعني sheekadaas ma aha dadkii salaf saalixiinkii hore zaman hore ma aha waa zaman anagu aan soo gaarnay wadadan soo gaarnay wey ardada waxaan xusuustaa ardada alwaalid raxmatullahi calayhi ee qur-aanka marka la akhrinayo si caadi bay ahayd dabiici bay ahayd inaad aragto yani dad ooyaya sheekh cabdiraxmaan folle sheekh la oran jiray markii dambena jaamica alislaamiya ka soo baxay raxmatullahi calayhi allahu naxariistay 3 maalin iyo 3dooda habeen آيات مقلي وسقوا ماء حميما فقطع معاءهم أنا وين ما يربانا هاي لكن وان حسوستا ما إلوبن سدح برية سدح ذا مالن بو وهن حتى صوم بي أهيدا أفركي ودي إنه يبات وهن استبجوكتو أنك لقوين شيخ اسنا شاه عبد الولي الليلة وأرضها كم ذا صلاة أنه كجرة فأما آيات سورة الانشقاق بو آخرين يا شيخ أنا كان صفقة دمان كنت كنيني ومركا أدبان ويراه لكن ما إلوبن واقع هذا ما إلوبن وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا هل كان مركو مري شيخ في القراءة سيدي قري أما اللوح لولك كل عي مرقرة أي قذات كلولك كبلابي وهن مركاسو صدوبي مركاسو ديق فح أكتر إنه كنت كناي صفقة دنبان هاي وما المرة اللي بوقني مركز ياخذت كنت ساس علىها وقلوبته إلي نوهيد
inaan marka nafteena aan la dagaalano oo bal cilladu meesha ay nagaga timid aanu dib ugu noqono oo nin walba naftiisa uu dib ugu noqdo si dacwada iyo khayrka aan ku jirno iyo macalinimada iyo quraanka dadka aan barayno ay taathiir u yeelato ay dadka ay saameyso yaa lanaga doonayaa ikhwaani baarakallahu fiikum yani taas waa dhinacaas dhinacan kalena أهم شيء الأخلاق الحسنة أخلاق ذا وناكسن هذا هو إمام الشاطبي قال كذا هذا الكيسي أن قصو مري إن لا يسجعل هذا كل عائلية محبة تحب لأخيك ما تحب لنفسك ومن الصفات المحبوبة الأصل في الأمر وبركة الله وحو إلهي بركة يا مبارك نقضة إن ير تحصيل إيا ددال وضدتي مدو إلهي كو بركي أيا وحوين إلهي كاقر ديغايا دب كستو إيو ددال رفات كستو هدي إلهي بركة ذا كاقادنا بلا فائدة نقون إيسا مركا إنا تضرع آد بديسو وعلاقة إلهي أضلال ذهي علاقة خاصة وحميمة أي نقطو آيات كو قاريسا إن شاء الله تعالى خير الدنيا والآخرة وصيادة يا دردارا كحق قرآن كان الحمد لله ودداشان الله ددالك سيدينسي كرديو إن شاء الله تعالى حفاظ قرآن كحفظيي وحال قربا ومهم إن وردقو دا أي الاليان أجزاء دا أي مالتي آخرينيان طبعا مركا يقول يرتهي هداد حافظ القرآن تهي وأنا سدح جزء آخر ذا وهذا السيدة أي مارك قررين أهل الفن واي تأوير يعني طبعا كعشرين مرة مش عدات كفي عنتها وتضبات كي مرة مش أنا وارن أردو ونكس تضبات كي قرآن كعدات مرة مشوا وننادوا في عمباتها فريد بات سيدا وفي عموي وأنا سهل جدا يعني ميسور دان خذلان كلي وسنجرين سهل واي وقت بدن كاقادا ماي اللي بحافظ مركات هاي دوس كأقريسة داد ميلو سعودية داد ميل كذا داد هول كلابا oo aan u baahnayn hadal u baahnayn ee afkaad ka aqriyaysaa quraanka inkastoo tawajuhiyo uu ku fiican yahay oo qalbigaaga uu soo jeedo xagga qiblada aad u jeedido waadan ku wax kale ku mashquulsanayn marka kuwa iyaga quraanka baranayana jiddi iyo ijtihaad iyo kasrata takraar iyo ku celcelin badan waa su'aal in badan soo noqnoqoto dariiqa ugu sahlan ee quraanka lagu xifdinayo wa ashal tariiq li xifd al-qur'an وكثرة التكرار يكون العلم بدن فاتحة ورنجل الشيخ رحمة الله عليه سورة الفاتحة محادثك أوقفي وين ما هنا قرآن كلا كفض ضعي لكن كثرة التكرار عرب كيبا حفظي عرب كنفت الكيسة حفظي قلبي وساهي يسكا آخرنا يا لأنه هو كثرة التكرار يكون العلم بدن يهلا قربا سيئة وكوسونا هذا قرآنك انت كعامة المسلمين يقول حلقة ربا وردقاس يومي قرآن إن أقريان حتى يكونوا لهم نصيب وحظ وشيء قوين إله النسي وأعظم هدية وإلهي سبحانه وتعالى نقوم من نجتي أفيروا سوق شاجرته بعد طلبة العلم مركي قرآن حفظيان كذب علومتك لأي باللابان إن قرآن إلوبان ساس ميدن كوير العظام مركا قاركش يا وأرن أهدو فالحوي وأرن أهدو فالحوي وحكوين قرآن كأد برنا يسمحويه قرآن كي برته واحد ذا شيء وحكوا سبنانا يدردارن كالنبي جواه عليه الصلاة والسلام تعاهدوا هذا القرآن فهو الذي نفس محمد بيده لهو أشد تفلتا من الإبل في عقولها علماء فربضن بان يعني أما علماء بان أرغني ووين وكان داميسن إن أيوه قرآن كا أي نسفسي وناكسن أتمكينين أما أحفظنين بارزين نقضي وهذا أي وحي كسو قاران أنقرنين لكن آدي آدو وتيرانجا مركا قرآنك وحكام مشغولية يوسنجرين وحكام مشغولية يوسنجرين وإنات قرآنك وردي كدقاتها أو آد أغردا أو هدواتا من كهد لينيه آد صاحب الليل نقطها هذا صاحب الليل نقطة قرآنك ما بكالو ما يبا وردي قاعد صلاة كتكون يشابك وفلم الله يجعلنا وإياكم كذلك إنه ولي ذلك والقادر عليه بارك الله فيكم جهودين يا خير كأتكو جرتان الله يديسي كرديو تاسان هذا الكي كسوق قبقبين
والمشايخ إن شاء الله من بعدنا، جزاهم الله خيرا وبارك فيهم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. كلماتكي وشيخ إنيري إنه الشيخي إلهي إنه أنفعه ما هاتو علاقتنا القرآن كله لأنه هاي ما نقطه علمي طلب كيسة guud ahaanba ama ha noqoto dhaqanka wanaagsan ee looga baahan yahay culimada iyo dadka talabatul cilmiga jawaanib badan buu sheekhu taabtay. ilaahay tabaaraka wa tacaala ha inagu anfaco. intaa kadib kolley maqrib kadibna kalimaad baa jiro oo masaajidka taqwa caawa maqrib kadib waqtiguna waa iska kooban yahay. waxaanu u idaafeyn lahaa waxaa runtii aada u soo baxaysa in dadku uu jiro azuhdu can ilcilmi, cilmigii barashadii diinta oo aada u sii yaraanaysa oo dadku laga tegayo waxyaalo kale runtii ama waxaan ina mashquuliyey ha noqdo shaaqishan wasaa'il tawaasulkan iyo waxaan ay keeneen, ama ha noqoto adduunyadii oo dadka qalbigoodii ku weynaatay iyo iyada lafteeda dabayshan iyo mawjadan inugu socoto oo ah taqdiisu dunya, maadada iyo adduunyada in la weyneeyo. wixii adduunyada ka qiimo badnaayo ka qaalisanaa oo cilmigii iyo aakhiro iyo diintiina in la fududaysto saameyn badan bay runtii nagu leedahay. saas daraaddeed baa waxaad ka dareemaysaa sida muuqata waqtigii nebigu sheegay sala allahu calayhi waalihi wasalam uu yidhi yurfacu alcilmu وينزل الجهل. علمي قال قادي دونا جهلي بانا بدل كيسة يا دقي دونا وددك عميمي دونا. وركاسو النبي قال أنا وحو الشيخ صلى الله عليه وسلم قابك علمي لو قاضيه إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبقي عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. علماء تجيسة علماء مركي تجيانا علمي ويلد منيا دتك علمي كريب لهانا وحكى لكم مشغولين وحيقاني ولد انتين اتكربتين ما جرتو مركز سداسو جهل وكو إيمانية. hadda fiiriso culimadeenii waaweynaa deegaankan qaar waa tageen, ilaahay qubuurta u waasiciyo ana u naxariisto, qaarna wax yar baa kasii dambeeya. sheekh cabdullaahi iyo raggii ugu dambeeyey waay. haddana maca daalika raggii booskooda geli lahaa aawe yaa u diyaarsan, yaa diyaara. waxaa laga yaabaa inaad sheekh cabdiraxmaan wardheere iyo sheekh maxamed xiirey iyo muxuu ahay waxoogaa yar aada sheegtaan, laakiin waxaa loo baahnaa in yani jiilba jiil uu bedelo oo iyagana jiil ka yar oo kursigaa sugahay oo ilaahu may banneeyaan leh in la helay ahayd. kuwii cilmiga ku mashquulsanaana wax kala mashquuliyey, kuwana xaggii cilmigaba ma soo fiirin, iyagu meel kale ka biicabeen. arrintaasi marka waa khatar weyn, waa halis ummadda kusoo wajahan waay. cilmigu siduu sheekhu sheegay qur-aanku ka bilowdaa, dabcan qur-aankuna ku dhammaadaa. sidaas daraaddeed baa
يعني culimada uu sheekhu sheegayay oo aad uga qoomamooday cimrigooda inay quraanka keligii gelin lahaayeen ibn taymiya kamida asagoo oo yani istinbaataadkiisa quraanka iyo tafasiirtiisa cajiib tahay oo diintan sidii ugu adeegay cid u adeegtaba ay yartahay ay hadana mac dalika aakhir cumrigiisa wuxuu dhigi jiray hadii dib la ii celin lahaa cimrigayga dhan quraankan gelin lahaa quraanku waa cilmi oo dhan waay lafdigiisa iyo akhrintiisa inaan juhdi gelinayo xifdigiisa dhanka kalena inaan dadaal iyo juhdi gelino fahamkiisa laana ilaahay wuxuu u soo dejiyay kitaabun anzalnahu ilayka mubaarakun liyadabbaru marka tadabburkuna wuxuu farc ka yahay fahamka macaanida haddadan macaanida quraanka fahmin ma tadabburi kartid tadabburka iyo fahamkaasa marka waxaa ka dambeeya waliyatadakara ulul albaab ku dhaqankii baa ka dambeeya sidaasaa tartiibku u yaala xilligii salafkana ridwaanullaahi calayhim saxaabadii nebiga sal alla alayhi wasalam siday qur-aanka u baran jireen iyo sidaan u baranno way kala duwan yihiin waa ka ninka lihi jiray abu cabdiraxmaan assulami kitaabiciga ahaa wuxuu leeyahay أثركاس عبد الله بن مسعود وكوريا وعليه رجي قرآن كان بري عثمان بن عفان عبد الله بن مسعود وحن كسو قارني نوش شيغان النبي صلى الله عليه وسلم مركي قرآن كقادن أيان طبعا آيادات بقادن شرين طبعا كآيادات أي أخرسك عربي هاي قراءة معناها يوليبكو عمل فلك طبعا كمركي سوق قيبان ayay hadana 10 kala qaadan jireen wuxuu leeyahay fata'allamna al-qur'ana wal-ilma wal-amal hal marba wax isla barteen quraankii cilmigi quraanka ku jiray iyo amal falki saas daradeed ba aymadii sunnada qaar kamid waxay leeyihiin in la kala fasliyo quraanka macnihiisa iyo lafdigiisu waa bidc gadaal ka yimid bay leeyihiin waqtigii saxaabada iyo salafka ma jirin waxa loo wada qasti jiray hal mar inay madaaristu ay ilmaha quraanka lafdigiisa lagu horeysiyo kadibna adaabtiisa macnihiisa la baro kutubtii loo bilaabay cilmigii bartaan saasay ahaan jirtay marka inaynu quraanka mundaantiisa siino ilaahay wuxuu inagu fadilay haddaan nahay mujtamaca Soomaaliyeed meel walba joogno قرآن كانوا إلهي إنه فضله قرآن كانوا إلهي إنه فضله سيداس دراديج ما أنت عالم الإسلامي مركا لمره بل عالم كاس كالبيت كمركا لتقو مساجد خاصة حلقة رمضان كوكالي تدك تجينا يا عربي عجم مركي اللي سوتهي صومالي بأو بدن شغب شيصوص اسمه يعني وادويد با ودada caraba meesha isugu yimid meel markaasa nin baa wuxuu soo jeeday su'aal wuxuu yiri caalamul islaami dadka ugu xufaad badan yaa waay yaa ii sheegi kara buu Soomaalidan marka madmadow lama yaqaan Afrikaan waaye Carabi ma taqaano mar dhow on qaxnay un baa leena arkay oo meelaha reer galbeedka iyo Yurubka leenugu arkay laakiin leena ma aqoonin سؤاشي نوحو يدي مصر بقو قرآن كأو حفاظ بضا نوحو يدي ما بهاشي مروكو يا مغرب العربي نوحو يدي السودان وحبا كما تشري وحصل وقت كان هذا اللي تشوق ضدك أو حفاظ بضا عالمك كمجتمع حديري والصومالي دبري وهذا صحيح وأنين أدون كصومري وعالم كصوار كوها وماشو نين كله أو isagana wadadada kamida muxuu ahay carabta kamid ahayo asalkiisu nin Suuriya buu ahaa laakiin Sacuudigu deganaa ayaa wuxuu soo maray Yurub marka Yurub uu ka soo noqday Yurub wuxuu soo maray Soomaalidii qaxday oo masaajid ka asaastay maraakiis ka asaastay gabdhihii oo xijaaban dhalinyaradii oo masaajida buuxinaysa muslimiintii hore oo ugu horeeyay dalalka oo markay Soomaalidan judbaysan arkeen
xoogaa diintii ku soo noqday oo dumarkoodii xijaabay oo masaajidii ku soo noqday oo Yurubiyankii oo laftoodii islaamaya diintii soo galay markaasuu yiri markuu Yurub ka soo noqdo Riyaad ku soo noqday buu fadhi weyn qabtay markaasaa liibal nooga waran Yurub wuxuu yiri Ilaahay wuxuu u soo diray rasuul madmadow buu u soo diray war rasuul Nabi Maxamed ka dambeeyo la soo diray ma jiree rasuul madowna lama sheegin maxay tahay waxa sheegaysaa nimankii reer Yurub waxa Ilaahay u soo diray buu yiri ummad Soomaali la yiraahdo halka ka timid marka Ilaahay wuxuu halka inagu gaarsiiyay waa Quraanka sharaf buu Ilaahay inoogu yeelay sharafta aynu Quraanka ku yeelanay waa inaynu ku dadaalno Quraanka waa inaynu ku dadaalo sida sheekhu inoo sheegay oo Quraanka aan la saaxiibno Quraanka macnihiisa ku dadaalo akhriskiisa fahamkiisa ku dhaqankiisa inaynu insha Allah ta'ala ku dadaalo Ilaahay baa inagu barakeeynaya insha Allah ta'ala laakiin ceebteenu waxay noqotay dhanka kale oo Quraankii lafdigiisa iyo akhriskiisa waa fiicanna laakiin dhanka ceebteenu waxay noqotay in aynaan macnihi ba in badan naga maqay saas daradeed aymadeena masaajida tujinaya يعني مرر فربضان حتى قرآن كي مركز آخرين يسمعاني ده هذا قرنين ما لا بدنه أن وقف هاي بعد سكي استاجي ومعنيه فساد أيه صوما ها ولا يا مرك حافظنا حاضرك إذا قرآن كان إيه دهينين هذا مع ذلك وحوي هاد قرن يسينو سن معناه حبك قرنين وعن الصلاة فهل أنتم منتهون وعن الصلاة فهل أنتم منتهون فويل للمصلين وكلوه صوما في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه هاي يصبح له فيها بالغدو والآصال هل كهدت كو يستاكت وضدنت هذا رجال لا تليهم تجارة صوما والآصال وفاعلك يسبح حقه هريك حرنته وآيات لكن وحل الرواح إن الراعيو معاني ذا يا قرن كرا مركا وحا قرن كرا waxaa keen kara ruuxa quraanka macnihiisa garanaya waa muhiim marka inaynu xoog saarno quraankii xifdigiisana ku dadaalo fahamkana insha Allah taala iyadana aynu insha Allah taala ku dadaalo isuna diyaarisan dhaxal weyn baad haysataan wax lagu bedesho ma jiro ruux Ilaahay quraan siiyay oo diin siiyay meesha uu uga guuri iyo wuxuu ku bedelanaya muxuu yahay wuxuu ku bedelanaya maxay tahay ما كرسي بقى لوجو بدشة مش جناعسي بقى لوجو بدشة وهي أن أبو صباح المعلمين تي قرآن كي الدكسية ده هي وإلهي الدكسية ده كبركي أيه واحد أركيسا سقوا بركيسان والله ذن وحافظ القرآن ومعلم ومحفظ أيه واحد أركيسا وحوجات تجاري يربع صباحيس بق ما أنت ده واحد أركيسا هبا سقوا مريا يرحم بارسانو عذر يركل الرجع وانيكي دناي حافظك هاي ومدو فيرسنيسay oo quraanka ku hogaaminahay haduu isku wada dhib male haduu cadarkana wado mariyahana wado quraankiina meeshii ka wada dhib malaha laakiin uu ka guuraya mid waxaad arkaysaa markiiba kursi buu raadsanaya quraankii waa ka guuraya ya war maxaad ku bedelani waxa ka weyn waxaad ka tagtay waxaad aaday wax liita waaye waxaad ka tagteen wax qiimo leh waaye sidaas daraadeed Allah idin barakeeyo iska waqti dambe kelimada sheekha baan muxuu ahay waxoogaa si taakiidinayay Ilaahay quraanku inagu sharfay aakharana sida baa quraanka leenoogu sharfiyo sida quraanka loogu kala fiican yahay baa aakharana loo kala fiicnaan doonaa waa adduunko sharafa iyo sharafkii aakharo oo isagana raacsan waay marka Allah idin barakeeyo cilmiga ku dadaala culimanimada niyooda waa waxaan garanayaa xeer baan hayno kutubta naloo akhrin jiray marka sheekha wuxuu dhihi jiray dhalinyarada wuxuu ku dhihi jiray sheekhnimo niyooda war sheekhnimo hal niyoodu dhihi jiray sheekhnimo hal niyoodu maxay tahay bimaana wax way ku talagal inaad culimo noqoto culimadana dhaxasho Soomaa ku talagal oo diyaar garowgeedii iyo amalkeedina la imo waa manzilo sare
qur-aanku hal jaguu ammaanay waxa jagooyin adduunka ka jiro dhan hal jaguu ammaanay jagadaana wax weeyaan al-imaama fi ddiin sooma waxaan kale kuraastan iyo jagooyinkan adduunka iyo waxaan oo dhan qur-aanku waa ka digay laakiin hal jagoo gooni loo ammaanay baa jira oo ah al-imaama fi ddiin rabbanaa hab lanaa min azwaajina wa dhurriyaatina qurrata acyunin wajcalnaa lilmuttaqiina imaama inaad dadka ahludiinka iyo dadka ilaahay doortay imaam u noqoto oo khayrka lagaaga daydo ood hogaamiye khayreed noqoto maxaa ka fiican meeshii laga noqon lahaa ma marka khayrka allah inugu sugo ilaahay diinta ha inugu sugo ilaahay tabaaraka wa tacaala ha inugu dilo hana inugu soo saaro sheekha khayr allaha siiyo qur-aankan aad arkaysaan ee soomaalida ku faafeen hadda ka sheekaynaynay wuu ina soo gaadhay soo ma isagoo sidii daadkii socda unbuu ina soo gaadhay laakiin xagee buu ka soo bilowday qur-aankan mujawad tajwiidka lehee carabku saxsan yahay sida saxda loo akhrinayo soomaalida xagee buu ka soo bilowday taariikhdiisa ma haysaan nagoo gaarisa dhex taagan oo qur-aankii tajwiidinayno baan is aragnay soo maaha qur-aankan tajwiidka ee sida saxda loo akhrinayo soomaalida waxaa sabab u ahaa sheekh cali suufi ilaahay u naxariisto sheekh aabihii qaybaha kale diintoo dhan hadday xadiis tahay hadday tahay caqiidada tahay hadday fiqiga tahay hadday tahay luqada carabiga ah waa majaal culimo badan ay ka wada qayb qaateen laakiin majaalka saxwada iyo baraaruga qur-aanka waxaa asal u ahaa sheekh cali suufi iyo ardadu soo saaray halkan idinka hadda waxaa idinla joogay sheekh khaliil soomaaya iyo sheekh ismaaciil iyo koox baa joogta sheekh u yimaadeen raggaasi waa muxuu ahay ardadii sheekha waay sheekh cali suufi waay sheekh cabdirashiid bay muxuu ahay isku sheekh ahaayeen soomaa raggii uu sheekhu soo saaray baa adduunka ku kala baahay ayagaasaa meel walba qur-aankii gaadhsiiyey sooma marka sheekhana u duceeye ninkii sababku ugu noqdo khayr waxa ugu yara uu kaa mudan yahay muxuu yahay man astaa ilaykum macruufan fakaafi'uuh waxaad ugu mukaafayada haddaydan haynina ugu abaalguddaanna nebigu wuxuu ihi u duceeye ilaa aad istiraahdo waad u abaalgudday marka sheekhana ilaahay u naxariisto awlaaddiisii iyo dadkiisii oo runtii qur-aankiisii dhaxlay sheekhu ka mid yahay iyagana ilaahay tabaaraka watacaala ha xifdiyo codsiyo badan baa jira oo sheekha laga codsanayo inuu Kenya oo runtii beled qur-aanka ku caanbaxay sheekha maalin tartan buu u yimid tartan waxaan qabanay 9 dal oo Afrika ah ay isugu yimaadeen 9 dal oo East Africa ay isugu yimaadeen sheekh xiray iyo waa joogeen Soomaaliya iyo Djibouti iyo Ethiopia iyo Kenya iyo Tanzania Uganda Rwanda Burundi Sudan 9 dal baa isugu yimid 9kii dal markii loo soo sheekha iyo sheekh kale isagana Macsaraawi la yiraahdo caan ah oo maqaarida Masar oo dhan ninka u weyna idinka Khaliil Xusari baa taqaanay Soomaa Khaliil Xusari booskiisa ninka ku jira way iyo sheekh ayaa noo yimid garsoorayaalka ah musaabaqadii nooca ahayd 9 arday baa nambarada hore galay oo abaalgud la siiyay 7 ka mid ah Soomaali bay ahaayeen adduunka ka kala socda Kenya Soomaaliya iyo Djibouti bay kala yimaadeen quraanka kaamil ah iyo 20 juz number 1 baa laga qaatay niman Rwanda la yiraahdo inuu soo baxay oo sahlanayn wax la filayay ma ah dhankan iyo Suudaan iyo baan iska ilaalinaynay laakiin Afrika la idinkaga imaanaya mayna islahay marka ilaahay quraanka waa inagu barakeeyay meel walba tagtaba sidaas waay hatta ciyaalkii aaday Mareykan iyo Yurub aaday
والد مسابقات كوين محوها الدولة من الصوت دان يرا كتي من الصومالية با قادي هذيك ما يصلح إذا مريكان dadka yimaada quraan qaadi ya saasa marka quraanka ugu barakaysannahay halkaasa asal ahaan quraanku ka soo jeeda yani wax weey sheekhaas iyo muxuu ahaa ardadiisi ba soo inoogu ahaa ilaahi tabaaraka wa taala ajirkooda miisaanka xasanaadka Allah u saaro innagana quraanka si daa'ima oo si xifdiya oo si wada oo si fahmo ka si shaqeeyo u shaqeeyo Allah inaga dhigo kuwa maalinta qiyaamada uu shafeeci doonana Allah inaga dhigo ilaahina adduunka intaan joogno Allah inagu xifdiyo jazakumullahu khayr wa baraka fiikum waxaan jeclaan lahaa fadiilat alwaalid sheekh Abdullah kelimada ugu dambaysa oo khadimka nagu dambayn doona sheekh arinta musaabaqada horta yar gaaraysa Soomaaliya yarkii ala suuq oo lambar 2 galay Soomaaliya ma saddexaad buu galay quraan kaamil مشايخدي لجنة التحكيم كوكوة جري وحان اسلا قرانا إنو سو أولى إنو كو قالو مرنا بشكل نقام قلين يعني حق إتقان كمركلي وحان تحكيم كوة معايير بو كسعودة حفظك وحان لسي 8 درجة تجويد كان وحالو حسابي شني طبعا أدها كلا إيا صوت قروحنا وحالة سيئي شن درجة لسيئي مركا دي حفظي ما دام درجة بان حفظي سنة متقنوا أها وأشكا بني آدمكو عرضة للخطأ خطأ أن لقى فيليني أيو أديقا قالي ومر هدي هالمر جرسك لقوية ليو جرسك وحليلة هدو مركو قلعو دي مركا كوسات وقشاوي أذكتاي وحان حسوتا مركا شيخي شيخ عبد السلام المقبل المجيدي وقرب كي قفلي بو قطيران يوضي يا سفي شديد بو يري يركم وحان سلها بو يري سو كو هقلو هدان ماشا اسكالية وسنقفل هين ماشا كلا إله سبحانه وتعالى نكا كلا الله وافجي ورواندا وحان كوضا رير قارشا أبليتم بلاء حسنا وآدي أد haddana waxaad musaabaqadan way socon doontaa ku talagal fiican waa inaad yeelataan waxyaalahan idinku sii dardaarmayo waxaa ka mid ah itqaanka xagga tajwiidka waa fiican yahay markaasoo kaleeti iyo ana ashhad lahu fi hada almakan annahu mutqin litajwiidi walilwaqf walibtidaa wax lamida ma jira yaa bala sheekh horta yarka ayaa quraanka u qoriyay macalinkiisa awey ma fadhiyaa meeshaan والله هنيئا لك معلك هادو ميشا فديو سلام بانو تاغينا معلم ما جو مسخرنا يا هادو سنجوغينا نغا غارسي ابي شقكم بلين ابي سو دله نينكا بري waxa weeye لانه ويرتاي اتقانكي تجويدك iyo xifdiga iyo waqfi ibtidaahna isku darsato الوقف والابتداء وحلا إلى باجرة حتى وقفك قفك اضطراري مركو كجوكسدو ماشي وكسب بالله يا مرلبات وتهدى أن قال لين يربع آخري حول من جبوت وكيمد يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون أتسمعين إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة وكجوكسدي فهل أنتم منتهون دوك بالله لها تمام محو كسو باللوذي وعن الصلاة فهل أنتم منتهون معنى هي ويسكدي ورسالات مسكدين يسابا ماشي تمت ما يسكدين من وذلك عبد السلام مجيد لا والله لن ننتهي وقالت لكن يركن أدبو نوع عجب قال يقردي سنة وسجل أنت سوما والله تصلح للتعليم هنيئا لهذا المعلم إن وقفك ابتداء هذا ماشى لقو كلا تجو مسابقات كدولي ولما كقرب قال لا ماشى لقو كلا تجو ووقفك ابتداء تجود كي تضبط ويا قانان حفظك تضبط وقلب السود إلى كده لكن الوقف والابتداء ومهم جدا جدا إنها تعرضها أتكو أبا بسان مد كلا مد مال مهن إيه لريد أو جرتي دردارنا والمعلمين تانو شهرت معلمين سيجار ما لو كل مدونا هذا أنا وأنا لفد يعني بدن
in badanna soo lama fadhiyaan macallimiina waxaa dhacday baryahan dambe wasligii baa laga tegey wasliga ka tegidiisu waxay noqotay in aan qur'aankii xarakaadkiisii la aqoonin iyaaka nacbudu wa iyaaka nastaciinu miya mise nastaciini mise nastaciina inaad wasli ku baratay u baahan tahay wa iyaaka nastaciinu hdinaa inaad wasli aqrido dad baa waxay akrinayaan wa iyaaka nastaciinu ihdinaa waa khata laakiin goormaa la baranaya waa marka inaad wasliga ku barto fa alwasl ihtimaam inaad siisaan horta idinka aslanba ka macallimiin aad barataan oo adiga wardigaaga aad ka dhigatid min dimni alawlaad waxaa jirta musaabaqa lagu sameeyo qadar oo maxalli ah laakiin waa musaabaqada adduunka ugu adag waay musaabaqa ka adag maba jirtaba liannu waxaa loo sameeyey maftuux baa laga dhigay da kuma xidhna haddana maftuux baa laga dhigay oo nin kasta xataa a'immo bangaaliyiin iyo bakistaan iyo iyagaa marka had iyo goor kow gala markaasay waxay sameeyeen si ay u kala saaraan waxyaalo oo alghaaz oo aan looba baahnayn oo luqsi ah oo maaragtay ka bilowbay waxay ku leeyihiin hal xiraalay ku soo dareen war ka daaya saan u lahayn dhowr sano markii dambe waxay dhaheen waayo waxaad ku kala saaraysaan baan nidhi wasliga ninkan lianna sanad kasta waa loo ogolaya inuu soo galo waxaad ku fardi yeeshaan mar hadduu hal mar faa'iisay marka labaad in hal su'aal 10 su'aal haddii hal su'aal la yiraahdo wasli ku aqri tiibay marka ku kala hadheen tiibaa kala raabtay marka inaad wasligan aad ku dadaashaan marka tawfiiq intaas insha Allah ta'ala tawfiiqdan Allah idin waafajiyo barakallahu fadal sheekh Yaxya Dr. Yaxya kalima yar asagana jecelaystay markaas sheekh macalinka wiilka quraanka baray uu isgabinaya meeshana ku jira gacbada madow weeye ee hortaada fadhiya agtaada ninkaa weeye allah barakeeyo madaxa kor u qaad allah ku barakeeyo jazaak allah khayr Dr. Yaxya qول كلمتك بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين اللهم صل وسلم وبارك على نبيك محمد وعلى آله أجمعين وصحبه أجمعين انت أنا هذا يركن ربينا شيء على سوبان وحيدت كورن مقشين هين إنه لما بركو قلي دونه تذكر أساس مقشين هين مركي الليل لما برسدح بان إلي ما دون معادريسه markaasuu hadal aan la yaabay buu yiri cajab ah wuxuu yiri inaan lambar 3 galo quraanka saan u xifisnaa hoos man uga dhaxya maya waxaan wadan oo kale ma leh buu marka arin yaab laba ahayd bismillaahir rahmaanir rahiim waxaan rabay abyaad yar oo sheekh oo noogu imaaday Madiina oo nala kulmay oo kalimad aad u qiimo badan noo jeediyay aan u jeediyay maalinta iyada ah taariikhdana waxay ahayd 30 bisha koobaad 1437 بسم الله الرحمن الرحيم وانا على وزن وقافية الشاطبية وفيها اقتباسات عن الشاطبية بدأت ببسم الله في الشعر أولا على المصطفى صلى الإله تفضلا سلام على شيخي فأنت محبب إلينا فقد ألهمت عذبا وسلسلا وأما علي فالقراءات همه لما كان بالقرآن قلب تجملا مضى أن أتانا بالقراءات عذبة علي هو الصوفي وفي الذكر قد خلا صحاب رووا عن شيخكم عم نفعهم سما ذكرهم إذ ما نسوه فيمحل وكم من أناس يصطفيهم إمامنا بحفظ وبالإتقان كنت مفضلا ويحدو عليا جاهدا ومتابعا فها أنت راويه المبرز أفضلا مددت يدا للشاطبية خاطبا فلفت حياء وجهها أن تفضلا وثنيتها بالدرة الغر منصفا سألت إلهي أن يمن فتكمل وثلثت تدريسا بصحبة طيبة وفيها شموس ضوءها قد تحفل شريطك للقرآن لاح على الورى
فضاع شدا من نوره وقرنفلا وعن خلف أتممت تتلو مرتلا كذلك أفردت الروايات مكملا جزى الله بالخيرات عنا إمامنا مع النجل وامنح في جنانك منزلا أرين يرى وحن قدر هي كوسابسن آياتها آخر كوضة إن يدتكم إن بدن قرين أحد المشايخ والمقرئين كان يقرأ عليه أحد الطلاب فقرأ قوله تعالى يا ليتها كانت القاضية ما أغنى عني مالية شيخ استاجي وحي قاضية محط وكردكتي وسوي وجودن تايبوري وشيخ يدو شيخ لفتي سواي ardayga laftiisa markii aan ogaaday wuxuu ku ogaaday i'raabku ku ogaaday i'raabka hadda garanaysa wax badan baad garanaysaa moogta ya laytaha kanat alqadiyata wa khabaru kana wa khabar kana wa waa mansuub waay marka taas uu ku gartay ardaygu wuuna xiriiriyay aayadii laakiin sheekhi amikum buu ku baraarugay sheekh lagu dul akhrinayo way oo riyad bay hidwan joogay meesha waan joogay assalaamu calaykum يا ولي موسى حريرين لكن wuxuu u haystay inay godan tahay marka dhaar dhow maalin dhawaytaan anagoo dhowr abaan idhi bal aayada akhriya maxarakadeedu maxay tahay kulligood waxay isku waafaqeen inay godan tahay barakallahu fiikum jazakumullahu khayr iga raali ahaada waa aad buu u mahadiyay sheekh Cabdirashiid sheekh Al-Suufi iyo sheekh Maxamed Cabdi Umar iyo culimada la socota hadaa reer gaaris nahay وما أدراك ما هي حركة المحاولة ونار الحامية كحد وما أدراك ما هي حركة الشيء يا حريرنا هي لبضة أيوة عنكبق مدن وصبح ما هي تنيرة هي ها وسكت الواي ما هي ساكنة في الحالين هذه الحريرية والسويد غامية لبضة ما هي نار حامية لكن ما هي هلك عني وجه ها صح بارك الله فيك جزاكم الله دكتور تفضل شيخنا جزاك الله خير ناصر ختم شكرا عفوا بسم الله الحمد لله صلى الله عليه وسلم ارتب المجلس كان ما شاء الله مجلس بركيسان إلى أن كبرنا سبحانه وتعالى نزول الرحمة والحفظ والسكون لما نقول عن النصيحة سي صعود كينية صعود كينية فرق أنما إنه أجري ثواب الله نقصيه يعني أنت أنا كلمة قابن أنا أقول وقتي كلمة وهذا قابن وقتي أنا وقابن هاي بني والبنبي هكسر لي تبانقور اللهم صل على محمد وعلى اللهم صل على محمد وعلى اللهم صل على محمد وعلى وسلم كلمة دير معها طبعا وضع كيسان ربي وحن كبرينا إنه وانفعه أداء الشيخ مركز سلامة هي شيخ عبد الرشيد كلمة قلبي قاعد وتاجريد بانكو السلامة وكلمة وصياء يعني كلمة ذا مركي كفتن أهان إيوه وحيسكا هيد مارت مركز سلامة هي بان هذا الكو سلامة ولكن وكلمة أولا وآخرا أنا لقى مارميني وحاولي شيخ عبد الرشيد أباها رحمة الله عليه أمد الصومالي ذا تجويدكو قارسيي أذيك أنا قراءتي قارسي